iskuul oo waa jireen laakiin afka rasmiga oo asaasiga wuxuu ahaa afka waxbarashada yani af soomaaliga u ah af soomaaligana haddii qolo kasta af kasta waddanka iska leh hadduu ka noqon waayo afka wax lagu baranayo oo maadooyinka lagu dhigayo juqraafi taariikh saynis wax walba lagu dhigayo hadduu noqon waayo afkaasi halisku waa aakhirka waa dhimanaya ama waa daciifaya oo maaragtay ma noqonayo sidii la rabo marka sidaa darteed waxaan rajaynayaa hadda waa la bilbilaabay oo dib bay u socoon laakiin uma dhawa weli meeshii loo baahnaa in af soomaaliya wax lagu barto marka waxaan erayadeyda ugu dambeeya idinka arda ahaan waxaan idinkula dardaarmayaa inaad sidaa ugu baraarugtaan qiimaha uu leeyahay yani afkiinu iyo ha dhegaysanina waxaan laydinku habaabinayo oo laleeyahay af soomaaliya meel kuma gaaraysaan qiimo ma leh waa un wax dadku isaga wada sheekaystaan af ingiriiska ku matiro iyo waqtigeedu kor lagna af soomaaliya waxaa idinku leh ha dhegaysanina been weeye waxaa la yidhahdaa lama horaan waa cawska jiila kan lama horaanka ah oo aqoonta dhabta ah oo aakhirka waxaan waa laga bixi doonaa iyo dhibaatooyinka hadda aan sheegaya iyo leelkan waxaa la gaari doonaa waqtiga idinku jaamacadaha ay ka baxaysaan insha allah wuxuu kusoo beegmayaa waqti laga gudbay yani dhibaatooyinkan aan sheegay waqti aad af soomaaliga lagu tartami doono yani qof aan af soomaali si fiican u aqoon isu shaqo helay ayaa soo socda hadda halka laleeyahay qofkaan ingiriis aqoon shaqo ma helay marka taa inaad maaragtay muxuu ahaa u tabcataan oo u taabushisataan inaad kuwii samaynayay oo ka gaadinka mustaqbalka idinkaale kuwa yani in sidaan si ka fiican la gaaro qorshaadka u noqonayo oo madaxdii berita ah inaad idinka tihiin oo ay tahay waajib idin yahay maaragtay inaad maanka ku haysaan annaga waxaan qaban karray waa soo qabanay iniga jiilka iyo maaragtay jiilkaashaan nala mid marka waa sii maaragtay annaga waa sii soconnaa idinkaan idiin taminaynaa maaragtay risaaladda ma garanaysaa mustaqbalka idinkaale idinku marka inaad yani ku mintidaan oo inaan ku hadlayn maaragtay dadka idinka waaweyn baa la idinka baahan yahay marka taa marka waxa weeye waa xagga ardayda xagga iskuul dugsiga الرحمة الحكمة معمولة أستاذ عبد الظاهر معمول دكسي إن نقوم ارتقالين وصدق أن نسكب برانين وأنا بقولكم لأنه أنا سيئ أنا ما هذا علينا وحنا قلنا دار مينا إن أيبونا وشيء النظام دكسي هذا ما في حرمها فلسفة وأفصومالي وحيوشين تيسا لغة المعنى inay yani muxuu safka hore ka galaan ayaan ku gubaabineynaa sidee uga galayaan waxay uga galayaan weli hadda aad sumaana wareysan oo soomaaliga sida loo dhigo iyo heerka isticmaalkiisu adeegiisu uu ka yahay dugsiga Al-Raxma weli aan xog badan samayo الحكمة وين؟ maadaama aad maaragtay muxuu ahaa naloo ku yeelay inaanu inala kulano weliba af soomaali ka hadallo weli taas waxay calaamad u tahay in maamulka dugsigu iyo maamulihiisu ay af soomaaliga qiimeynayaan marka waxaan leeyahay qiimeyntaas kor u qaada sii kordhiya siyaalaha loo kordhin karo waxaa ka mid ah ku dadaala sidii uu maaragtay muxuu ahaa dugsiyada afka soomaaliga uu noqdo afka wax lagu baranayo noqdo afka kalena sidooda kale loo barto inuu ka mid noqdo yani in aad ku dadaashaan sidii maaragtay muxuu ahaa awooddu ay muxuu ahaa idiin saamaxdo ku dadaala midda kale oo fudud oo taa kasii fudud waxa weeye magacyada ku qoran maaragtay yani meelaha hadda waxaan muxuu ahaa markaan sidaa isha u mariyo waxaan arkayaa dabcan markaan soo galaynay dugsiga magaca dugsiga waa arkay inuu maaragtay af soomaaliga uu ka mid yahay afafka uu ku qoran yahay oo dugsiga sare ee maaragtay alxigma maaragtay dugsiga sare meelo badan xataa intaa kama helaysa tabeelayaasha magaalada ama iskuul dugsi ha noqoto ama meherad ha noqoto yani waxaad ugu wada tegaysaa af ingiriis maaragtay oo ku qoran magacyadooda taasina waa ceeb weyn oo maaragtay waddanku ingiriis madaxa waddankan soomaali baa ingiriiskana dadku hadla waa yaryihiin oo fahmaya marka waa dareelin garanaysaa iyo kudayasho indhaa in lagu ordo maaragtay af cid kale leedahay oo weli aan la fahmin waxaa arkaysaa adigoo tuulo maraya maaragtay markaa boosaaso wadada boosaaso aad qaado tuulooyinka yaroo aad sii marayso meel yaroo maaragtay gaas yar oo waxaad arkaysaa tuulo ku yaalo oo meel
aan qof af ingiriisi aan joogin waa ayaan dhexdaas waxuna aan soo arkay waxaan arkay meel ay ku qoran tahay gaas mid malaha nacnaca iyo waxaas iibiye biskuitka iyo waxa maxaa super sweets super sweets bal super sweets yaa la fahmay dadka warama inay soo jirtaan wax ka iibsadaan ma super sweets waxa meeshaan yaa lagu yiri waxa yihiin ma garanayaan ma fahmayaan magaca laakiin hadduu ku qoran lahaa macmacaanka sare qof walba iyo dhalinyarada iyo gabdhaha iyo haa walahi meesha macmacaan baa lagu iibiya waliba sarreeyo oo maaragtay fiican oo saasaa faa'iido ugu jirta marka waa badownimo iyo jahli waxaas marka inaad dadkaas yani inaan ku dayan inaynaan maaragtay muxuu ahaa ku dayan oo ku niya jabin kuwa idinle shaqo ku heli maysaan maaragtay yani af soomaali marka taana ku dayashaan dugsiga marka magaca